magaalada Nairobi waxa ka furmay shirka ay Kenya u bixisay shirka qaadka waa sida ay joornaaladeedu qoreen siyaasadda sideeda waa la qurxiyaa dawladda federaalku waa hadashay shirka iskaashiga beesha caalamka iyo wadamada dariska iyo iskaashiga iyo dhexgalka labada wadan iyo wax isdhaafsiga marooyin kale oo qurux badan baa la hubiyay laakiin shirka Kenya way qaawisay wasiirkooda beeraha hadlay shirkaas loo bixiyay heshiiska qaadka Mira trade deal baa Nairobi ka furmay shirka waxa hogaaminaya nin la yiraahdo Mr. Kringo wuxuu ahaan jiray afhayeen wuxuu ahaan jiray member of parliament ka soo jeeda gobolka Meero waa niman London ku kulanay waxa hadad maqli jirteen qaadiid waa qaadoon meel kale ha ka raadin waa kan asoo afkiisa ku leh ee baldhigiiso. They feel that they can ban our crop whereas they are trending in our land with impunity. raganimo ninku inuu maylkiisa cadeysto oo fiican tahay ninkaas wuxuu yiri ma yeeli doono umana dulqaadan doono in mar dambe la carqaladeeyo ganacsiga qaadka iyagoo Soomaalidu ay ka ganacsanayaan si xornimo leh wadankayaga yeelimeeyay waa ninka safiirka Soomaaliya ee Kenya u fadhiya Soomaaliya waa ninka sawirkan ka muuqda oo shirka maanta ka furmay Kenya safka hore taagan shirkan waxa la filayaa inuu saxiixo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha mid baan leeyahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa tahay siyaasi u horeeyay Soomaaliyeed oo aan ka maqla afkiisa siyaasadda waxaan rabaa inaan jannada ku galo Allahu akbar wa hadal weyn anfacahu linnaas ku ummadda anfaca ya oo ummadda wax tara oo siyaasadda ama waxtar bulsho ku gala jannada Ilaahay oo kuwa Ilaahay jecel yahay oo kugu geyn kara Ilaahay aniga adiga waan ugu geey inta islaam laakiin waxaan leeyahay Xamsow waxa igu maqaalaa shirkaas inaad adigu soo xiri doontid oo ninka saxiixaya aad adigu tahay 8 bisha waxaan kaloo ka warqabaa in xogogaal u ahay inaad diiday inaad qaadato lacagta qaadka laakiin shirkan inaad tagtid madaxweynahaaga amray waadna u socotaa halkaas markay marayso waxaan leeyahay kelmadii caanka ahayd oo madaxweynuhu hore u yiri Xasan Sheekh Maxamed Khayr Allah siiyo farxaano buu yiri Ilaahay ku naxariiso dhiiqa lagu galinayo haya ka joog maanta ka joog Xamse Cabdi Barre awowgay baa tahay waxaan ku leeyahay dhiiqa lagu galinayaa ka joog shirkaas haddii yoolkaagu uu ahaa sidaad adigu afkaaga ka tiri jannaan rabaa inaan ku galo ultimate goalka shirkani janno ku dhaweyn maayo sababtana waa ku sheegaya waa kuwaana daawo kaniisadaha oo looga duceynayo shirkan inuu khayr ku dhamaado bal daawo and Moses Imana will hold on to his carefully picked bundle of Mira until when it is time to give the offering. Like Imana, most residents of Meru are Mira farmers, and they too are in church with their bundles, a plant that residents here call the miracle tree, where money literally grows on. Ilaahu Xamse Cabdi Barre yicidi saxiixdo yicidi qaadka loo protect garabay ku hayaan nimankaas hadaad u tagtid oo ducada kaniisadaha ka socota iyo sixirka iyo allabariga iyo warayda ay wadaan hoogayo baayda aad inta u tagtid u saxiixdid ogow waxaa diiday culumadii iyo masaajidadii iyo danyartii iyo hooyooyinka dulman iyo kuwa ilmadu ka dareeraysa xijaabka hoostiisa kuwa reerahooda ku dumeen caruurta caawa gaajaysan inta ignore garaysid waxba yahay ka soo qaadid nimankaas kaniisadaha durbaanada ku tabanaya ha u saxiixin maanta waa maalin adduun Ilaahay horti anaa kugu marqaati furaya inaan ku soo gaarsiiyey inaan ku faray oo aan hadhow oran doonin Ilaahu leeyma sheegin anaa kugu marqaati furaya maalinka qiyaamo awoow ka joog madaxweynahaagana kala tali dawladdaadana kala tali gabadhii waxay tiri in dhibaato igu filan farqan ku haystaa qaad 24 diyaaradood baa saaka ka degay wax hor leh oo Kenya loo saxiixo maba yaalaanba ee waxa ay rabaan waa 20 years 30 years 50 years now Soomaaliya garta duub in loo qabto waxay dhibsadeen madaxweyne markay balad xaawo iyo duqeeyaan Jubbaland iyo ay duqeeyaan madaxweyne warqad inta soo saara dhaha maya ilkii farmaajo ay wali qabaan inuu mid dambe ku sameeyeen bay rabaan waxay gacanta ka bixinayaan awoodii yarayd oo ay Soomaaliya leverage-ki yaraa oo aan haysanay oo aan Kenya uga cagajuglan jirnay
رئيس الوزراء وكتشوف حقوق بنا 20 years بنقاد كشقيني نينكا أركز وشركة الأبابولية لندن بان وقعت كذا قرد الضوبها إيه خبرن هأتشبه أمة الصومالية نينكاس سفيرك قادك أفضل صومالي وي سياسي ما وقادون شركاسنا سقى أبابولية رئيس الوزراء وكتشوف مال اسكو يمد حاران مقدع وح إلهي شر اسكو يمد إلا حلاليه أريقو رئيس الوزراء الدولة الفدرالية وحنقاتك أو أقونسنا كاش كروب هتدهد معنى هذا وحوي I disagree إلهي وانكفكر دولها أنا أيا أو أقونسنا إنه حلالي هاي حمسو أرنتاس وخطر دين تنسفي عن بعض التقالنا كتشوك شركاس مدحوينانا كالتاني الله كبركي وانكو سلام يا إلههم وشابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.